استقامة مركا حال حدا طبقات كستو مسلمين تكمل كل غلاد هاي سادين توقسقنا لها الدليل بلغوها يا دليل هذا بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانا هاو قد هزي في مرنا إلهي طاعت دي سيد دقري سمدينين ملك نبي رسولا والله اختباري تضبطي هبلوضو لها مركليا لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي واسكا صبري تضبطي ويلو لها مركليا اسرائيل واسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركليا لغا قاده واسكا صبري markaas jidhkiisa waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nooceeya gaadhay waxa la jidhkii intuu dhamaaday hariga iyo lafahaas ku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraahdaa ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan midka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba deedna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkeysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanayno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay deedna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أردا واقي وربي جيبه لما ناجوده وقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قادو إتابته هذا يقولنا كون حريص لك وقلنا حريص بدن باته إله نبكى إيجا قاد بويري إله مركبه دعاء سوى كأقبله بالليل هل كي وجوجي باللغور اللقطة هذا اللقطة كله اركض برجلك 18 سنه ننجي في حنون سنه awood jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyo biyo uu kaga keeni kara waa awoodee yani adagu asbaabtii la kaalay weeyaan anaka biyaha soo saaraynay lugtaada yar dhaqaaji bas asbaabtan adduunyadan arkayna oo dhan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira asbaabtan sida jirka bini aadanka ruuxdu ay ugu dhex jirto ayaa asbaabtan adduunka aad arkaysan nidaamka ilaahay baa ku dhex jira marka nidaamka ilaahay isheenu ma qabanayso qudradda ilaahay baa caalamka maamulaysa lugtii buu nabi ayuub saa u dhaqaajiyay dhulkuu ku celiyay labada lugood dhexdooda biyo ka soo baxeen baa la yidhi laba ilood oo biyo ilna waxaa la yidhi ku maydho ilna waxaa lagu yidhi acab uu maydhay jirkiisii waa caadi uu cabbay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba bannaanka uga soo baxay uu soo kacay mar keliya xaaskiisii baa magaalada ka timiday way ku wareegtay iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay
miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaaye formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuubu aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayoo dhan waa xaalaad bay idhahdeen eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa alaxwaal ilaahay baa keenaya marka axwaashan sida adiga laguu abuuray ayaa xaalaadkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeenna Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan ree Hargeysa ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka kaga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa ta magaalada u ballaaratay madaaristii macaahidii masaajidii ganacsigii da shukriga in la badiyo sooma oo ilaahay ku mahadino marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'imi ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma tala al-laylu fala budda min tulu'i al-fajr famahma tala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraatee geeri baa ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa oran jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaadaa waa la yaabay laba faras magaciisa waxaa la yiraahdaa ash-shukr faraska kalena waxaa la yiraahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynaa hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteenan istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yiri تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة barwaaqada ilaahay ku garo abaartiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan haddaa tahay ayuub baa ku daliila sidoo diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maal qabeen haddaa tahayna kam tujaar baa adduunka soo marto ehlullaahi oo ilaahay taqaan jazaakallahu khayr dhalinyar haddaa tahayna dhalinyarnimada ilaahaaga ku garo oo toddobada ilaahay u hadhaynaya waxaa ka mid ah buu nabigu yidhi shaabun nasha'a fii taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro waad liibaantay ogow fanastaqiim ilaahay amarkiisa aan ku toosnaano insha allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd jannada meel ka fiican ma jirtaa halkaasaa lagu ikhtibaaray isaga jannada dhexdeeda fakulaa minha xayثu shi'tuma walaa taqraba hadihi الshajara fatakuna min الظaalimiin shaydaan ayaa u yimid ibliis calayhi lacna deedna u waswaasiyo wuxuu ku yidhi geedkaas cunidiisa lagaa reebay manfacada ku jirta ma kuu sheegaa
هانو شيء هداد أذي حوا جيت كأدعني لهيدين أذيك يا حواء لا ميدون بنقول لهيدين أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين لا ملك بنقول لهيدين أما الله بولي والجنة كوار يا هن لهيدين بكويري وداخل الجنة لقوا امتحان النبي آدم عليه السلام لأن قف كيبو كل عي جنة دي بالله قصوا صاري ومالك قيامها دتك ومرقي نبي آدم أتقان شفاعة أي ويديستان إليهين أبو البشر باتهي هذا النبي يده وجوه الرئيه إلهي نوجي إرجع واك أورنا يا قف كي عن جنة رحلة ذا كوجلي أيها بجنة دي قصوا صاري بوليه عابد بان هاي او عبادة بدن بان هو إلهي بان عابدانا هكودق من بالليدي إبليس سمدا ميل كبناني ما جرتو إلا إساقو بإلهي بكو عابدي هذانا ملائكة دحدد إساقو كنول وبقعات كستو سمدا كتا لدوشي هذا إلهي كو عابدينا إساقنا هالكابا لغو امتحاما لغو في النية إبليس عليه اللعنة حتى آدم عليه السلام مركي الله صوري سورة ديسة انت أنا الروح ذا لقوا أفوفين أفرت السنة اللي أيو النبي آدم انجيجي بابا ديسي أي انجيجي سي مرقاسة ملايكة صداوة يقع ويكعب صدام مرقاسة ويمادان إبليس عليه اللعنة وملايكة أيو أركيين إنو يحي كإلهي أيك أقودو مرقابة يكور هذا حامدو إلهي نوبري أو نوبري هذا دعاء هذا الله أقبل إياه ويا امتحان باصوص عده امتحان كأنه كفدنا ونأيان كبقيناي إلهي النوبري بيكون هذا الامتحان كأننا كبعينه إلهي نجبت باديو برجاس ودعاء يرادا إلهي امتحان كأنه نجبت باديو يكو ودعين يسقوسه يسقوس كربا دعاء يك الله أقبلي يسقين اختبار كيف كل عيب الله يدي ومحود دي سجود النبي آدم بوسكت دي marka caabid baan ahay oo meel fiican man ilaahay ku caabudayaa bay culimadu leeyihiin ha ku dagmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa cabsidaasi marka waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid